Dowladda Norway ayaa markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii qaboobaa ee adduunka kadib waxa ay dhistay guutadii ugu horeysay ee difaac ciidan ah taa oo ku qalabaysan qalabka ugu casrisan una tababaran tababarka noociisa ugu sarreeya ee ciidamada qalabka sida ee dalka. Guutadan oo loogu magac daray Finnmar ayaa waxa ay ka howlgali doontaa deegaanada waqooyiga dalka Norway ka oo loogu magac daray deegaanka Finnmar ee xuduudda la leh waddanka Russia taa oo lagu qiyaaso in ku dhow 198 kiiloomitir. Ciidamadan loogu magac daray Finnmar ee tababarka khaaska qaba sidoo kalena ku hubeysan qalabka ugu casrisan ee maanta dunida ka jira ayuu sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka Norway in ay heegan buuxa ku jiri doonaan 24 saac ee maalin walba 7 maalmood iyo sidoo kale guud ahaan sanadka intiisa kale. Waxa uuna intaa ku daray in ay ciidamadan diyaar u yihiin xilli kasta, saacad kasta iyo sakan walba in ay difaacaan dalkooda iyo dadkooda. Laga bilaabo maanta oo Arbaco ah ayay ciidamadani waxa ay ka howlgali doonaan deegaanka Finnmar ee xuduudda la leh dalka Russia waxa ayna noqon doonaan ciidamo adag oo difaacoodu aad u culus yahay kuna qalabaysan qalabka ugu casrisan ee maanta dunida ka jira. Ciidamadan ayaa waxaa qayb ka noqon doona guud ahaan ciidamada qalabka sida ee dalka Norway si lamida guutadan Finnmar ee qalabka casriga iyo tababarka sare ku hubeysan ayaa sidoo kale waxa uu dhismahooda iyo qalabeyntooda iyo xoojintoodaba sii socon doontaa ilaa iyo sanadka 2032. Ciidamada qalabka sida ee Norway ayaa hore waxa ay u lahaayeen hal guuto taa oo loogu magac daray guutada waqooyiga Norway waxayna xaruntoodu ahayd magaalada Troms. Guuta saddexaad ayaa hadda waxa socda dhismaheeda taa oo loogu magac darayo guutada koonfurta dalka. Guutadan ayaa waxa uu dhismaheedu socon doonaa ilaa iyo sanadka 2036 waxaana iyaduna lagu qalabayn doonaa qalabka kooda ugu casrisan iyaga oo heli doona tababar casri ah oo aad u sareeya iyo xirfad difaac oo aad u adag. Dalka Norway ayaa deegaanada Finnmar ee guutadan cusub loogu magac daray waxa uu la leeyahay xuduud dhererkeeda lagu qiyaasay dalka Ruushka ku dhawaad 198 kiiloomitir halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.